Wata daawadayaal dhawaan waxaa lagu wadaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota in lagu soo bandhigo riwaayad la magac baxday siyaasadda maanta. Si aan wax badan uga ogaano ayaa waxaa ii suura gashay in aan la kulmo Axmed Kamadege oo ka mid ah guddiga qabanqaabinaya riwaayadani. Waxaan ugu horeyn aan jeclahay inaan weydiiyo riwaayadani isagu doorka uu ku leeyahay. soo sheegay deeq Axmed baa la dhahaa riwaayadana qaybta aan kaga leeyahay waxaan ahay maamulaha oo maamulaya stage-ka dadka bilaadanka markay magaca marka horeysa maqlaan waxyaalo badan ma isdhahayaan ruuxba sidoo u dhigtay noqonaysa ma ogtahay laakiin riwaayadani waa riwaayad maxay ahayday on kaleenahay macnahaasi uu yahay midna kale su'aal banaadi ku weydiinaya hadii la dhaho Soomaaliya ma dadka degan mise dadkan qurbaha ku nool labada qof keebaa wax ka bedeli kara Soomaaliya maxaad dhilaa adigu shacabka Soomaalida u deynayna laakiin adigu maxaad dhihileed run ahaantii anigu ma dhahi kari kuna wax bedeli kara mise wax bedeli kara laakiin taas waxa ku sheegaysaa riwaayadu waxa ku saabsan tahay shakhsi ahaan ruux kaste inuu la imaado nacam su'aashan dadka weydiinay inay jawaabtoodii la imaadaan asal ahaan adigu nin caan ayaa tahay oo YouTube-ka ku soo caan baxday boqolaal qof ayaa ku daawata riwaayadani inaad stage-kaas aad maamusho ma ahine jilayaasha ma ka mid tahay may sababtoo ah horta waxaan waa wada cast wax isku wada wax baan rabnaa marka horeysa markaas run ahaantiina waa isku shaqadii laakiin anigu waxaan ahay ruuxa oo stage-kan maamulaya ma ka mid yahay matalaya goorma soo bandhigaysan riwaayaddan waxaan soo dhigaynaa sidaad u jeediinba waa bisha July 26keeda 27keeda iyo 28keeda waxaa markan ii suura gashay inaan la kulmo Ayaanle Faarax oo isagu ka mid ah guddiga barnaamijkan wadaha ugu horeyn waxaan jeclahay Ayaanle riwaayadani maxay tahay riwaayadani waa riwaayad oo aniga iyo Cabdifataax Faarax oo aan qornay 2 sano ka hor waxaan ugu dhiirigeliyay inaan qorno waxyaalaha wadankeena ka socda anakoonan aan fursad u yeelan inaan wadankii soo aragno aan ku noolaano waxyaalo badan aan waxa ka aragnay wararka iyo telefishinka iyo sheekooyin badan oo adiga dad badan oo ay noo sheegeen marka waxyaalihii aan maqalnay iyo waxyaalihii aan aragnay ayaan isku wada darnay riwaayad ayaan ka dhignay marka riwaayadan waxay ku saabsan tahay waxaan jeclaan lahayn inay dadka Soomaaliyeed oo bulshada Minneapolis jooga inay ka soo qayb qaataan July 26deeda 27deeda iyo 28deeda oo riwaayadu ay bilaabanayso 7:00 waxaana lagu dhigayaa Southern Theater oo ku taala Washington Avenue addresskana waa laga socodsiinaa riwaayadani yaa ka qayb qaadanaya riwaayadan waxa ka qayb qaadanaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis iyo agaarkeedaba oo jilayaal oo wiilal iyo gabdhaba ay ka mid yihiin riwaayadii ka horeysay aad soo bandhigteen sanadkii hore aad qabateen waxaad ku qabateen amba aad u dhigteen qaab Soomaali iyo English isugu jira tani marka maxay kaga duwan tahay tii hore ma Soomaali ay ku bixi doontaa mise English run ahaantii tan waa ayadana sidoo kale way kala qaybsan tahay laakiin waxa jira dad oo Soomaali jooga oo riwaayadu ku jira oo af Soomaali kaliya ku hadlaya oo ujeedadoodu ay tahay inay dadka Soomaaliyeed inay la hadlaan ay dadka Soomaaliyeed ay fahmaan ayaga qaybna oo English ku hadlayaan oo dadka Soomaaliyeed oo luqadii ilaabay in ayaga xataa naftirkooda ay siyaasadda maanta la socdaan Cabdifataax Faarax waxaad ka mid tahay qorayaasha riwaayadani waliba shakhsiyaadka gacanta weyn ka geystay inay soo baxdo barnaamijkan marka hore faahfaahin ka bixi riwaayadani waxay ku saabsan tahay riwaayadan waxay ku xisaabsan tahay waxyaalo badan oo laga ordo oo laga hadlin badanaana oo impact garayso dhalinyarada noloshan dhan waxaan loo sheegay qurba jooga tihiin Soomaaliya ku laabta marka wax soo baratiin looyaro badan dhaqtaro badan oo nooc walba ah Soomaaliya ku laabta systemka ay ku laabanayaan ee ku xisaabsan tahay riwaayadan systemkaasna mana ii sheegeen waa inaan riwaayada daawatiin and the second thing aan rabo inaan dhahano waxa waaye waxay ku xisaabsan tahay isbedelka wuxuu ka imaanayaa dhalinyaradii oo qurba jooga ahaa oo ku laabta Soomaaliya oo noloshooda dhan ka maqnaayeen mase waxay ka imaanaysaa
dhalinyaradii oo Soomaaliya joogay hadda waa maqashay annaga waxa ku laabanay Soomaaliya dhalinyaradii halkaas joogay waxay isdhahayaan Soomaaliya intaas sana ka maqnayeen waxaa la soo laabateen degrees iyo PhDs iyo nooc walba la soo laabateen waxbarasho la soo laabateen laakiin shaqooyinka annaga loogu talagalay u soo laabateen mina u soo laabanin wadankii inaan bedeshin marka arrimahaas ay ka hadlaysaa waana wacyigelin badanaana aniga waxa oo aad muhiim iigu ah aan aad ugu faraxsanahay riwaayadda ana ka shaqeeyo waxa waaye fanka iyo suugaanta Soomaalida iyo riwaayadaha waa inaan soo celino and that's the important thing sidaad ka warqabto riwaayadani dad badan ayaa ka qayb qaadanaya kulli qarashaad far badan way ku baxayaan fikrado badan ayaa idinkaga baxay yaa idinka taakuleeyay oo barnaamijkan in ay soo baxdo idin suurtageliyay dad badan ayaa qayb ka geystay laakiin number 1 waxa ka joog waa hay'adda ka mid ah oo taageersan oo u taagan dhalinyarada markay tahay waxbarashada iyo dhinaca fanka iyo suugaanta inaan soo celino aniga iyo ayaan la faarax gabyaal aan ahay riwaayado badan waa ka shaqeynay riwaayadana wax oo xal iska soo baxda maaha oo nagu soo dhacday waa wax aan 2 sano ka soo shaqeynay wata daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga telefishinka Universal waxaana si toos ah kala soo hadlaynaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka markan waxa ay suur gashay in aan la kulmo qaar kamid ah jiliyaasha Soomaaliyeed ee jilaya riwaayadan la magac baxday siyaasadii maanta sidaan idin sheegay baa lagu qabanayo magaalada Minneapolis dhawaan ay riwaayadan soo bixi doontaa hadii uu eebedmo waxaan jeclahay in aan ugu horeen aan weydiiyo riwaayadani qaybta aad ku leedihiin idinku hadii adiga aan ka bilaabo أنا مجاعي واحد يرى محمود عيسى أن قيبتهم كلها هاي هرتوا قيب وين أن سنقطة أضيف على قديك دونا سد مركز بلا سياسة ده أن وحنا هاي أضيف السياسة بلاجا كجرو أو ويل باند لا هاي أن أضيف حاجة وقوق في السياسة ده كبعدي أن وحنا كم ده أضياشي كل رياضي Soomaali waagi ahaan jirtay wixii ahaan jirtayba okay marka maadaama aad qaybta ugu muhiimsan riwaayadda aad jirayso oo nin ku qafiifay riwaayadda aad tahay waxyaabaha aad ka fikirayso inaad qabato maxay marka horta koow inaan ka sheekeeyo waxyaala aan maqal ana waxaan ku koray dalkaana ku koray inta liiga sheegay siyaasad waa inaan waxaan ka maqlay oday ama qof iga weyn waxaan ka maqlay marka inaan ku soo celiyo waxaan maqlay marna aan ku daro waxa aniga si ila tahayba marka libiska aad xiranayso ma siyaasiyiinta Soomaaliya isku ekaysiinaysaa mise si caadi ah u libisanaysaa marka stage soo istaagaysid ma xogaa wali odeynaya laga dhigaya gar iyo waxa la soo horgelinaya wali dhahay taa ka bacdina waxa la gelinaya shaatiga farmaajo la gelinaya oo aha tuutii ciidanka la gelinaya in dagaal ka qayb galno laga yaabo insha Allah markan waxa ay suur gashay inaan la kulmo mid kamid ah gabdhaha riwaayadan qaybta weyn ka qaadanaya walaal adigu ugu bilaabay magacaada adigu qaybta jilaysa magacayga waa Xamdi waxaan jilayaa gabar oo wadankan ku dhalatay ku kortay waxna ku baratay laakiin uu ku jiro qalbigeedina Soomaaliya mar ay tagto aana laakiin haynin hami ay ku tagto so waxaana qaybtan kamid ahay waxa way dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa hadda la dhiilgareynaya aanan ogeyn inay rabaan wadankii ku noqdaan ama inay wadankoodii ka dhigtaan marka dhexdhexaadi ku jiraan anigana waxaan jilayaa qof dhexdhexaad meel ku jira oo raadinaya yani hoob ama wax aan wadankii wax ku taro ama ugu noqdo inaan arko ama ay igu dhacdo marka qaybta ugu muhiimsan marka aad jilayso waxa waaye adigoo rabay in wadankii inaad ku noqoto balse aad ku noqonayn oo meeshaadii aad fadhiso marka waxyaabaha kale ku soo xiiso galiyay oo aad rabto inaad bulshada u soo bandhigto maxaa kamid ah dhalinyarado dhan waa isku wada mid yani waxa jira kuwa badan oo aan raba inay yani fikrada haya yani haday wax bartaan inay wadanka ku noqdaan wax u taraan laakiin aan processka ku jirin maadaama wax process oo qorsheysan aysan jirin oo plan oo dhalinyarada ay wadanka inta ku noqoto wax u qabato waxay ista ku yihiin fikrad ay nolol halkaan ay rabaan marka ka dhisaan iyo ayagoo waliba fikrada haya marka dhexdii ay ku lumeen meeshaas marka dhalinyaro badan ay dhexdii ku jiraan aad baad maasantiin labadiinaba